kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhowaada kuna soo dhowaada kanaalka qalbi Soomaali TV. horta fanaanka Maxamed Bk maxaa ku kalifa hadallada noocana yacni hadallada uu ku mudo magaalada Muqdisho yaa ka dambeeya in Maxamed Saciid Bk uu soo hadal qaado magaalada Muqdisho. haddaba fanaanka yaa soo dirsaday waxaan idii haynaa sira aad u waaweyn sidaa daraaddeed waxaad kaloo muuqaalkan ku daawan doontaan Maxamed Saciid Bk oo raalingelin bixiyey isla markaana sheegay inuu magaalada Muqdisho iyo meel kastoo Soomaali joogtaba lugihiisa dhigi doono. haddaba haddii ay tahay markii koowaad ee kanaalkan soo booqato fadlan calaamadda subscribe ka taabo si aad ula socoto barnaamijyada xiisaha badan ee maalin kasta aanu soo gelino. ugu horeyn daawadayaal ku soo dhowaada hadalka Maxamed Saciid Bk. Maxamed Saciid Bk waxa uu raaligelin buuxda siiyay dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaanuu yidhi oo hadalkiisa ku bilaabay horta ummadda Soomaaliyeed waan salaamayaa meel kastoo ay joogaan sidoo kale waxaan cod dheer tacsi ugu dirayaa dadkii naftooda ku waayay qaraxii Muqdisho. wuxuuna hadalkiisa sii raaciyay Ilaahay dhibta haynaga wada qaada dhammaanteen. intaa kadibna Bk wuxuu soo hadal qaaday dadka beenta ka faafiyey isagoo soo qabsaday laba maahmaahood oo Soomaalidu leedahay wuxuuna yidhi suxun waxuu sheeg sixir waa ka daran yahay iyo dab munaafaq shiday muumin baa ku gubtaa. intaa kadibna fanaanka Maxamed Saciid Bk waxa uu sheegay in uu isagu hadal wanaagsan oo tacsi ah u diray Muqdisho balse dad ay ka faa'iidaysteen oo dhinaca kale u rogeen hadalkiisa. sidoo kalena daawadayaal fanaankan Maxamed Saciid Bk loo yaqaano oo dareenkiisa cabiraya waxa uu yidhi anigu taageerayaashayda iyo ummadda Soomaaliyeed labadaba waan jeclahay waxaan kaloo ogahay in ummadda Soomaaliyeed anigana i jeceshahay sidaa daraaddeed dadkii hadalkayga qaladka u fahmay waan ka raaligelinayaa ayuu yidhi. Muqdishona xaal baan siinayaa mar hore iyo mar dambaba. dhinaca kalena daawadayaal Maxamed Saciid Bk oo hadalkiisa sii wata waxa uu ka jawaabay soona hadal qaaday su'aal dad badan ay isweydiiyeen taasoo ahayd horta ninkani ma fanaan baa mise waa siyaasi. wuxuuna kaga jawaabay oo uu yidhi anigoo horta Bk ahaan fanka iyo siyaasaddu way iskaga kay darsameen yacni iskaga kay murugeen laakiin waan kala saarayaa. wuxuu kaloo hadalkiisa ku sii daray oo uu yidhi anigu muraayado cagaar ah ama giriin ah baan sitay laakiin waan iska saarayaa waayo fanaan Soomaaliyeed baan ahay. sidoo kalena daawadayaal fanaanka loo yaqaano Maxamed Saciid Bk waxa uu soo hadal qaaday isla markaana caddeeyay inuu meel walba tagi doono. wuxuuna yidhi socdaalkayga Yurub markaan dhammeeyo ilaa Muqdisho ayaan tagaayaa sidaasoy tahayna labadayda show ee ugu horeeya waxaan ku caawinayaa qoysaska dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii Muqdisho. wuxuuna hadalkiisa sii raaciyay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay dadkaas ha u naxariisto. dhinaca kalena daawadayaal fanaanka loo yaqaano Maxamed Saciid Bk isagoo ka hadlaya nolosha qofka fanaanka ah gaar ahaan fanaanka caanka noqda waxa uu yidhi fanaanku hadduu caan noqdo dhibaato ma waayo waayo hadalladiisa ayaa si xun loo fasirayaa. sidaa daraaddeed ummadda Soomaaliyeed qaar badan oo ka mida in badan ayay uurka iga xamanayeen qaarna way ii habaarayeen. haddaba waxaad tihiin walaaladay ee fadlan duco iigu beddela. daawadayaal Bk isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu yidhi anigu fanaan Soomaaliyeed baan ahay waanan jeclay ummadda Soomaaliyeed waxaanan ballan ku qaadayaa meel kastoo Soomaali ku sugan tahay inaan labadayda lugood ku tegi doono. sidoo kale daawadayaal fanaanka Maxamed Saciid Bk waxa uu qirtay in hadalka uu yidhi uu ahaa gaf isla markaana uu garwaaqsaday gafkaas. wuxuuna isagoo hadalkiisa sii wata yidhi reer Muqdisho waan ka raaligelinayaa hadalkayga sidaa awgeed nin weyn cumaamaddu way ka dhacdaa khaladkana waa la ismoodsiin karaa. haddaba cumaamaddu way iga dhacday ee igu tuuradee markii horeba cumaamadda idinkaa igu tuuray oo fanaan iga dhigee. ugu dambayntiina daawadayaal fanaankan waxa uu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey oo uu yidhi anigu siyaasad dambe oo aan ku jirayaa ma jirto hadalkaygana raaligelin buuxda ayaan ummadda ka siinayaa ballanna waxaan idinku qaadayaa meel kasta oo Soomaali joogto inaan idinku imaado. wuxuuna hadalkiisa ku soo afmeeray oo uu yidhi I love Muqdisho oo macnaheedu tahay Muqdisho waan jeclahay.